كبنيحنو سؤال شاوي why are we what we are where we are that's the question that we have wadannada qaarna maxay si leeyihiin kuwa kalena si kale leeyihiin kuwa kalena si kale leeyihiin inaguna sidaan u nahay sidaan nahay bas ay toota noqotee waan ka wada hadli doonaa marka waxaan ka warramayaa dhaqaalaha sida generalka baan uga warramayaa waxaad ogtihiin dhaqaale meel walba dhaqaalaha xukuma dhaqaale waa nolosha adduunka weey dhaqaaluhu barashada dhaqaaluhu waa nolosha those of you studying psychology dhaqaaluhu kula geli psychology waa maxay human behavior wey human behavior for consumption baa jira sidaad yani doolarka ku soo gala sidaad u kala qaybiso badhna saving uga dhigato badhna uga dhigato consumption for today is economics way haddana waa psychology oo human behavior of course waa the center of psychology haddaad dhiganayso taariikh history haddaad dhiganayso economic thought of history baa jira iyo sidii economigu usoo farcamay oo qayb historyga ka mid a ayaa iyaduna dhaqaalaha markaa kuwiina historyga dhiganayo waad arki doontaan now communitygu siduu iskugu yimaado ee uu decision u gaadho community ahaan ya ay wax u wada qotaan ee wada wada samaystaan ee u wada shiraan ee u wada showraan so sociology way but it's also economics public decision making way together was sociology marka economigu baananka iyo waxa kala shaqeynaya oo dhan waa economics marka economy fieldka ballaaran ee generalka ah ayuu yahay marka waxaan ka hadlaynaa marka dhaqaale in general wuxuu yahay ayaan marka doonayaa inaan ka hadlo dhaqaale waa wax soo saar wax la soo saaro ama hu ha noqdo ama wax la cuno ha noqdo ama aqal dhisata ha noqdo oo cover garaynaya ama daboolaya baahida community-gu soo express gareeyeen ee dadku leeyihiin dhaqaale marka wax soo saar iyo baahidii oo la daboolayo labadaasoo isku tegey iyo waxyaalaha dhexdooda ku jiray isla doondoonanaya formulada isku geynaya dhaqaale waa kaa weeye dhaqaale markaa wuxuu leeyahay tiirar buu leeyahay dhaqaaluhu tiirarkaa mid waliba gooni bay tahay anoon detailskeedi ku daalin dhaqaaluhu tiirar buu leeyahay tiirarka ugu horeeya waa qofka weeyaan dhaqaale waa qofka weeyaan dhaqaale waa qofka iyo madaxiisa ama madaxeeda iyo gacmihiisa intaa hadduu qofku helo dhaqaaluhu ama ha koro ama yuu karin isagay ku xidhan tahay haddee kada laan badan looma baahna badayo arrimo kale looma baahna wax walba qofkaas iyo siduu isagu isku maamulo ayuu dhaqaaluhu yahay horumarkiisuna taasay ku xidhan tahay now dhaqaalaha markaa qofku markuu soo dhasho dadku waa isku wada mid markay dhashaan qoladiina IT-ga barata halkan IT-ga ugu wanaagsan baa la yidhi computerku wuxuu leeyahay hardware caruurtu markay dhalato hardware isku wada mida hadda waa waxa hardware iyo software ba halkaas laga keenay marka hardware isku wada mida lagu wada dhalay isku mid weeye dadku ama ha dheeraado ama ha gaabnaado ama ha indha yaraado ama ha indha weynaado whatever dadku waa isku mid waxa markaa difference-ka samaynaya waa software-ka meesha la geliyay weeyaan hadduu markaa qofka software-kiisu wanaagsan yahay isagaa hore isku marinaya isagaa wuxuu doono samaysanaya maalin dhoweyd inaad aragteen mooyaane waxaan arkayay Japan ba waxay samaynayaan elevator dayaxa tegaya aqal buu ku sameeyay waad galaysaa elevator-ka taaban dayaxu geenaya one of the universities ba samaynaya you make a research you'll see it ayaa samaynaya bisha sanadka soo socda ayay bilaabayaan research-ko dhan way sameeyeen elevator erka ku geenaya de qof uun baa sameeyey software-kiisu wanaagsan yahay marka dhaqaaluhu waa qofka iyo wax maskaxdiisa ku jira iyo habka uu isku habeeyo weeyaan waxana kaloo key ka ah development waa shaqo dadku hadday shaqaysan waayaan meel gaadhi maayaan
dee shaqaynaan siba u waday what is the definition of shaqo what is the definition of shaqo by the way waa shaqo tegay u baa la yidhaha soo maha what have you done for the 8 hours you were around what have you done xisaabtaas productionku taasaa define garaysa what have you done today qolaa waxaan ku idhi beri aan muqdisho joogay ayaa waxaan ku niyo markaad galabta cishaa'iga tukanaysaan baan ku cishaa'iga reerkiinii la fadhidaan one question is weydiiya waxay maalintii shaqaalahaba ahayd adeero one question is weydiiya in front of Allah subhanahu wa ta'ala waxaad tidhahdaa what have I done today waa shaqaalad weytii soo maha adigu is weydii in front of your Allah subhanahu wa ta'ala waxaad tidhahdaa what have I done today yeah that makes me deserve to be paid waxaad ogaani inaad bes shaqo teginba maanta ama waxaad ogaan inaad suulka soo saarto iska soo noqotay ama waxaad ogaan wiiganba inaana tegin markaa shaqaan tegaya waan shaqeeya waa kala gooni markaa qofku hadduu maskax wanaagsan leeyahay software wanaagsan oo uu shaqada tago uu soo shaqeeyo 8 saacadood ama 9 saacadood ama 10 soo shaqeeyo uu dhididka iska tiro qof waliba saa sameeyo that is what development is all about that is what development is all about waa qof iyo mishiinkana dadka ayaa sameeya bal waxaad ka warantaan tolow dalku inuu bad weyn leeyahay development ma u keentaa ya hadduu dadku bad weyn leeyahay development ma keentaa hadday xoolo badan leeyihiin development ma keentaa hadday leeyihiin resources marine resources tolow development ma keenta populationka hadduu badan yahay hadduu yar yahay tolow difference ma samaysa research din yaal weeyaan it is very simple inaad wadanada adduunka jira wax soo saarkooda iyo populationkooda iyo land size-kooda isku qiyaastaan and it will be very clear only people make the difference dad shaqaysanaya oo waxay hayaan ka shaqaynaya ayaa hore u mara wadano fara badan baa jira oo aan bad lahayn oo cirka qabtay wadano fara badan baa jira oo bad iyo beriba adduunka dhul badan ku fadhiya oo aad u buura okay saliid haddaad leedahay ama buuro dahab aad leedahay tolow ma lagu odhan karaa why you are developing no it's not haddaad eegto wadanada eeg list of developed countries eeg waxa oil kala dhan kuma jiraan why is that haddaad eegto laakiin economic performance-kooda GDP per capita haddaad eegto oo lacagta haystaan dadka loo qaybiyo 100,000 baa midkiiba helaya sanadkii of everybody 100,000 but that is not development is it development waxa weeye dadku siday u shaqaynayaan iyo waxa iyagu sameeyeen unkeen oo earthquake hadduu dhaco aan waxba ka qaadayn resilience way development sustainability way development not fragility and vulnerability yeah waxa weeye waxay dadku sameeyeen oo ka soo kaban kara dhibaatada dhacdo dhan laakiin haddaad oil leedahay oo earthquake dhaco aani way daateen and you are poor again that's how development economic development is defined now waxaan doonayaa inaan idin tuso dhowr wadan aan isgarab dhigo dhowr wadan baan doonayaa inaan isgarab dhigo waan de Somaliland garab dhiga idinkuna garab dhiga dabeetana waad arki doontaana waxaad odhan doontaa why are we like that and why are they like that ayaad odhan doontaa haddii populationkiinu isleegyahay oo dalkaagu dalkooda ka weyn yahay oo baddaadu baddooda ka weyn tahay hadda listen to me I'm very serious about this baddaadu baddooda ka weyn tahay oo dadkiinu dadkooda ka badan yihiin oo resource-kaagu kuwooda ka badan yihiin haddanaad iyaga baryayso maxay tahay what is it haddana iyaga aad baryayso ood weliba qaxootihaan ugu tegayso bal ka war baasaboorkoodaan doonaya aad haynayso sow ilaahay daragaaga kuma dhigin ilaahay daraygaaga sow kuma dhigin example-kaan idin hayaan idiin sheegayaay waad ila eegi doontaan waxaan soo qaatay waddan kale idhaa Ireland waxaan soo qaatay waddan kale oo qaxooti badan inaga joogo Denmark
waxaan soo qaatay waddan kale oo qaxooti badan inala joogo Norway waxaan soo qaatay waddan beriyo dhaweyd 20-30 years ago very poor ahaa oo la yidhaha Singapore wada taqaana baan maranaya waxaan soo qaatay waddan yar oo jigjiga yar ka weyn tahay I can assure you oo Europe ah oo la yidhaha Luxembourg mabadan maqal baa laga yaabo jigjiga yar baa ka weyn waddankaas waad ila eegi doontaan waxaan soo qaatay waddan kale oo aad ugu badanahay oo la yidhaha Holland Netherlands waddanada population-kooda ila eeg adigu with the exception of Netherlands inta kale oo dhan Somaliland baa ka weyn waddan ahaan bay uga weyn tahay dad ahaan bay uga badan tahay ya haddana markaas iskara dhigto waxaan soo saarayna waxay soo saarayaan aqliga gudima keenayo in the hundreds of billions bay iyagu GDP-goodu yahay hundreds of billions innagana hadduu ugu bato 5 billion dee su-aasha idin taalla waxa weeye noo taalla why is that the case yaa inoo taalla waxaasoo dhan maxay iskugu imanayaan waa shaqo iyo leadership okay it will take a while oo dee wax waliba way soo dhismeen waqti bay soo qaadatay laakiin at the end of the day waxay iskugu imanaysaa waxa weeye because dadkii waa joogaan resourcekii waa joogaan badihii waa yaalaan everything is there haddaad laakiin waxba ku qabsan weydo if you are sleeping most of the day and doing something I don't know most of the night yeah if that is what you are up to you will always be begging for food always you will be begging for food sharafna yeelan maysa you have no pride yani dalalka qaarkood horumarka waxa ugu wacan waa they are very proud they don't want anybody giving them anything pride inagu we like to be given something 8 baan ka war all the time 8 baan ka fikirna 8 baan ka shaqeynaa aniga boqol jeer baa ninkii cadaa inoo yimi muxuu ina siiyey muxuu ku siin lahaa baan ku dhaha muxuu ku siin lahaa ninka cadday muxuu ina siiyey ninkii maanta ku yimid Baylow mentality-ga perception-ka noocaas adeer inaad beddeshaan baa la rabaa inaad beddeshaan oo dalka leadershipkiisa qabsataan oo wax soo saartaan haddii wax soo saarku muxuu yahay waa shaqa soo dirmaan odhan shaqada waxay tahay inaad marka shaqa lagu dhiibo this is very relevant for you the berer shaqa bilaabaysan haddii ilaahay yidhaahdo private sector and public sector halkaa maanta aad joogtaan tacliinta aad baranaysaan be very serious about it very serious ya ha qishin yaana lagu qishin ya adigu inaad isa soo saarto oo aad wax badan barato will save your life and it will save the nation dee marmar af ingiriisi baan ku hadlaya arday baa tiin wax garanaysa raalli ahaada waan isku qasaya please excuse me ya marka bottom line-ku waxa weeye shaqaad heli insha Allah you don't care about other people go to work in the morning 8:00 in the morning and you stay there and produce something until the end of the work hours number of hours now anu waxaan is idhahdaa nimayow inaan meel fadhiisano oo aan iswaraysano oo nafteenna u sheekayno baa loo baahan yahay waan shaqo tegay kaliya maahe maxaad soo saartay wataan idin waa meesha ku jirta how many papers did you sign how many issues have you resolved today how many bushels of wheat have you produced at the end of the day what is your product xafiiskan tegay maahe maxaad qabatay have you been busy with your telephone or your nails or whatever have you been doing that have you been gossiping with your friends yeah running around what have you done for your company for your people what have you done it is extremely important inaad arrintaa aad ku soo jeedaan now dadku markay shaqaynayaan dadkuna roolkaasay leeyihiin waa roolkaa shaqada
dawladduna rool bay leedahay dawladda roolkeeda waanu iman doonaa dadka marka u horeysa xafiiskaaga waa inuu leeyahay shaqadeed qabanaysa waa inay taalo qorani waa inay dawladdu taa samayso soo ma shaqadaadii qoran oo tafatiran oo job description kii leh terms of reference kii leh timing kii leh contract baa lagula seexanaya on the base of that oo ay tahay tii interviewga lagaga qaaday if there is ever an interview ayaa number 1 kiya taasi waxay tahay markaad shaqadii timaadeen shaqada qabanaysa iyada lafteeda oo aanad meelo kale aanad ka warwareegin bini'aadamku waxay u baahan yihiin markaa si ay shaqada uga soo baxaan waxa la yidhaha motivating factors by the way waxaan idin akhriyayo waxaan ka soo minguuriyey presentations badan oo dadka lagu train gareeyo ayaan ka soo minguuriyo waxa idinka levelkiina baan ka soo saaray maaragta waa muxuu ahaa PowerPoint presentations badan oo isku keenay weeyaan waxa la yidhaha baa jira motivators of people waxa ku motivate garanaya inaad shaqadaadu wanaagsanaato kow kama aha salarigu laana salariga waxa la isla gartay in lacag kugu filan lagu siinayo saad u noolaato well that may not be the case but normally shaqa kugu filan adiga iyo xaaskaaga ninkaaga ama gabadha xaaskaaga idinku filan oo economic justify gareeyay waa inaad helaysaa oo la siinaya besides that the best motivating factor kama lacagta ma waa xafiiska ambience-ka xafiiskaagu siduu habaysan yahay asxaabtaadu asxaabtaadu waa another family weeyaan ay noqdaan hadhow markaad shaqaynaysaan you have a family back home you also have a family here inaad xafiiska u soo hilowdo waa inay dawladdu saasoo kala samaysaa xafiiskaagii cafeteriadii biyihii meeshaad ka cabaysay transportationkaagii waa in loo cater garayaa needskaaga so you can be productive haddii kale a worried person cannot produce anything marka waxaasoo dhan bay tahay in laga shaqeeyo dadku dabeetana productivity-ga ay productivity wanaagsan soo saaraan now mas'uuliyadda dawladda by the way dawlad waa dadka u shaqeeya weeyaan hadday khalad ka fahamsan yihiin waa ciidan weeyaan xoolaha annaga beeraha qodan annagu ninka beerta kuu qodaya ee looda ku raacaya sanadkii dibi baad siinaysaa laakiin inta kale aduu kuu shaqaynaya dawladdu waa sidaa waa ciidan aan inagu dalbanay inagu qorannay normally inay inaga inoo shaqeeyaan dawladdu oo ay qabtaan waxa inaga dhexeeya anuu waxaan leeyahay anaa qabsanaya adna waxaagaadaa qabsanaya xoolahagaadaa raacanaya laakiin dee waxa inaga dhexeeya ilaa anigu shaqadeedii gaarkayd baan wataa my private business baan wataa wixii inaga dhexeeya qabanaya aan qaar iska soo saarna baan nidho kuwaan iska soo saaray baan waxoogaa lacagana siinayna waa ciidankii uun maaragta qofkii fujagalka fujatag baa la odhan jiray fujatag hebel kuwaas way horta ninka dawladda inoo sheeganaya waa dad inagu aan qoranay oo nidhi wixii inaga dhexeeya haddaan waxba inaga dhexaynin dawlad uma baahnin oo de sidii aynu ahaan jirnay ninku arigiisa iyo xoolihiisa iyo geeliisu lahaa roobka iyo daaqana alla hayay waraabahana way iskaga filaa cidna uma baahnayn and therefore he needed no government laakiin arrimihii markay complicated noqdeen ee loo baahday iskuuleyn la galo ee loo baahday wadooyin la isku maro in la samaysto ee loo baahday in biyo naga dhexeeya la samaysto ee loo baahday communities ee security-gii dhibaato noqday ayaan nidhi aan dad samaysano aan u bixino dawlad oo daba inaga inoo shaqeeya nimankiiba markay cashuurtan waxaan iska qaaday inagoo nidho ku shaqeeya weeyaan nimankii dawladdii baa meel walba ha joogaan intay cashuurtii urursadeen ee ciidan samaysteen baa inaga nagu karbaashayaan hadda waa dadkii inagu aan qoran marka dawladda mas'uuliyadda saarani waxa weeye qofka dawladda u shaqaynaya private sectorku iyagaa waxooda wataa haddaad shaqaynada berri ku eriya qofka dawladda u shaqaynaya waa in faylkiisu diyaar yahay every day hadduu shaqo tago waa la eriyo waa in la eriyaa wixii meesha ku qoran waa in la sameeya if you don't work 8 saacadood ama 9 saacadood by the way yaa ina yidhi maalin horena waan ka hadlay yaa ina yidhi 8 saacadood aan shaqayno maba shaqayne yaa yidhi dad inaga horeeya oo meel sii socda ayaa iyagu damcay inay ku filan tahay inay 8 shaqeeyaan inaguna waxa saasaa la yidhi inaguna 8 shaqayno maan nidhi
وأنا نقوم في الله نقوم دمبينا يا إن سقالية طبانية كوبية طبانية شقيني لا أدت كسوق قارينه أيان لهي سيدابها يسكا هاته ما هالشقدي سيدة ساعة هاي إن قبلنا ما هدان سيدة ساعة شقينه أو every day وحصوص صارنو يا أو لينو كرجوك تيجو أو أهلا لينو كلا أحن أو أن أسوه لونه حفيزك that is where productivity goes to the ceiling hits the ceiling وعن مركا وباهناي إن عن دولة يدد بعد قالة سمعية دولة دون رول كذا قاعدة دولة رول كذا وحويه إن قانون سمايسو ليبر لوجا استعماشو يا أنا قلت له أنا مدحوينه إنه وزيرك ورقة لا صحيحه if I don't see you in your office 2 days you are fired إيه مكان سياسة يا if I don't see you in your office 2 days أنا أنا وحبي يمي هيدا شغال نقدر حاسس سوما if you are not here for 2 days without any reason you sign now that you are fired and وزيرك also تدك كله اللي تشوفه إسقى report قريه إسنين وصلاحي هذا هذا شقي ويدان ويعني تدك وين الشقيين هم ماشي إسكا تكان وعن مركا أورانا يا وعندي كل ريان وملاينا يا قفكو بني آدم كيه وحوبها يا هملو ده سوق شقية وحوبها هي هاي كله needs كفاميلي يسأل لا cover قريه سدا سوق شقية قفكو وحوبها هي إنه ethics يشو now ethics هي discipline بكالجرا ethics work ethic and discipline labada waa la bartaa ethics iyo work ethic iyo discipline labada waa la bartaa qaarna qasab baa lagu bartaa oo de marka lagu xanuuniyo discipline baad yeelanaysaa ya bari lacagta laga jaro lagu eriyo meel ka soo dhacdo discipline ka baad yeelanaysaa discipline waxa weeye do exactly what is needed to be done today not tomorrow work that needs to be done today has to be done today not tomorrow haddaad sidaa ku heshiin weydaan waa lagu eriyaya dabeetana adiga discipline-ka iska yeela ethics waxa weeye waa damiirkaaga wey damiirkuna wuxuu ka samaysmayaa laba arrimood buu damiirku ka samaysmay mid waa alla ka baq ilaahay waad ka baqaysaa iyo nabigiisa iyo arrimihiisaad ka baqaysaa markaa waad toosnaanaysaa maaragta midna waxa weeye cabsi waa ku haysaa cabsi ka haysaa in lagu eriyo ama mushaarka lagaa jaro markaa ethics damiir baa kuu samaysmaya damiirku waa ka inanta halkaasii socotee boorsadu ka dhacday eed aragtay intaad qaado aad ka dabageynayso damiir waa kaas soo maaha work ethic waxa weeye adigoo xafiiskaaga jooga oo albaabka soo xidhay ya inaanad ku mashquulin arrimahan kale ya eed shaqo qabanayso oo wax kuu diidayaan inaad meermeerto ama telefoonka qabsato ama waxbaa kuu diidaya waxa leedahay shaqan ku jira baad is leedahay dadkoo dhan sidaasay noqonayaan waa shaqaynaya qaar baa telefoonka meel iska dhigaba adduunyada kale ethics weeyaan markaa waa work ethic weeyaan waa shaqada waxa kugu wadaya weeyaan kugu haynaya weeyaan now waxaan markaa u baahannahay ila ogaanaysaan dad iyo dawlad isku tegay ayaa horumar sameeya landkoodu inta waxaan maanta qiyaasay area square-ka maxaa la yidhaahdaa maroodi jeex area square-keeda haddeer markaa dawladaha ka hadlayay maroodi jeex waxa ay ka weyn tahay Ireland, Singapore, Luxembourg and Netherlands oo la isku daray waa dhulkan qaxootiga u tagayna soo ma dhulkan qaxootiga u tagayna weeyaan ya waxaan idhi maroodi jeex waxay ka weyn tahay landkeedu dee baddeedana waa taqaanaan Ireland, Singapore, Luxembourg and Netherlands oo la isku daray bay ka weyn tahay maroodi jeex marka really if that is the case maxaa su'aal inoo yaala soo ma maxaa su'aal inoo maroodi jeex maxay soo saartaa maroodi jeex ya wadanadan sheegay waa billionaires way billionaires marka wax walba waan haynaa maxaynaan hayn dad baynaan hayn ya dadku baanu egnahay maaragta waanu egnahay we look like people but we are not I don't know what the hell we are ya dadaan waxba soo saareen baan nahay dad consumption ku nool baan nahay dee nafteedana wax ka sheegaynaa soo maha ya dad waxaan nahay maalintiina hurda
habeenkiina hurda ama wax kala sameeya ayaan nahay haddaan fadhigaa fadhi waxayna dhaxalsiisay taasi waxayna dhaxalsiisay inaan baryo ku noolaano